السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن شفيع كورته سيدو كلا يوتيوب channel كأدا ونسو وشفيع كورته فلان ضي تمركو وريس سلو سبسكرايب نصر سيو من نقطة أصحابتان هروجوكتي كليلاب ما أنتي مقال عصب ما أنتي مقال كأنه في كسبسين هسه وضع ركتام أما تيتل كبات كاريسين دور الشركة سعة حاجة أمريكا لو كل واحد ترتمي الصلاة مشرحة وضع قانين مدحويني وراء دولار ترامب يجو بدن مدحوينا عصب هذا أو ترتمي هاي وضع كاسينو كقبطه حلك يدور الشركة laba oga qof guuleyso doona ilaa hadda laakiin sidaan wada ognahay ama aan wada dareensanahay waxaan hadda miiska saaran oo waliba ay badan yihiin dhibciisu madaxweyne midka cusub masharaxa cusub loo yaqaan Joe Biden ayaa haysto tire aad u dhow midii loogu talagalay in labada qof uu qofku ugu talagalay inuu guusha ku qaado taas ayaana rajeynaynaa in dadka badana waxay kulay taageersan yihiin ama ay taageerayaan haday yihiin dad kale u dhashay dadka u dhashay iyo sidoo kale siyaasiyiinta wadanka markaas ka qayb galo dadka markaas meesha joogo waxay taageersan yihiin inta badan sidaan wada aragnaba masharaxa cusub inkastoo ay jiraan musuqmaasuq badan laakiin madaxweyne Donald Trump wuxuu ku andacooday in uu ama uu ka cawday in ay jiraan macnaha musuqmaasuq badan meesha ka jiro haday tahay dhac marka asagu wuxuu ku wareejiyay badanaa barnaamijkii oo sida qurux badan u wada socday maxkamadda ayuu wuxuu dhahay waxa jiro in codadkayga qaar la baasbaxshay oo meeshaas laga saaray that's why ayaa keentana in maxkamadda lagu wareejiyo xalay ilaa maantay ciyaarta waa daawanayna sida doorashada u socotay waxaana koobka hayay madaxweynaha cusub laakiin madaxweynaha cusub wuxuu ku helay ayaa la sheegay in ay jiraan musuqmaasuqyo badan iyo dad badan oo ka macnaha meeshaas jiraan inay codadkaas ugu shubeen asaga laakiin Trump ayaa arintaas beeniyay oo wuxuu dhahay waxa jiraan musuqmaasuq hoose iyo dad hoose oo jiraan inay la wareegaan ama ay galtaan codadkayga sida awgeed arintii waxa la wareegtay maxkamadda wadanka markaas dimuqraadiga markaas arrimaha galsooraha ee waxyaabaha noocaas oo kale oo xilsaaran oo kala saaraysa waxaan rajeynaynaa inay guushu sida quruxda badan ee loogu talagalay ay u dhacdo sidoo kale waxa jiraan maadaama ay doorashadu meel xamaasad leh ay marayso dad badan oo yani soo baxayaan haday tahay Soomaalida hore u deganay oldiga iyo hadii yihiin kuwa hadda shirba marka waxaan ka waaninayaa Soomaalida ku nool meeshaas in ay ka digtoonaadaan waayo doorasho ayaa ka jirto doorashadana wax kasta ayaa ka suurtooba inay iska qayb galeen musuqmaasuqyadaas oo kaleete iyo waxyaabahaas dhici doono ay laakiin la socdaan sida ay u socoto xamaasadu madaxweynaha cusub waa madaxweyne la taageersan yahay dabcan waxaana rajeyn doonaa in dad badan oo uu hore ugu adkeeyay madaxweynaha cusub uu hadda kan iyo uu bedeli doono xaalado walba oo Donald Trump uu hore u qaba jirin waxaan rajeyn doonaa in uu bedeli doono madaxweynaha cusub hadda la dooranayo insha Allah sidaan wada ognahaba doorashada wax yar oo basida ayaa ka dhiman inuu guuleystana wax saas si weyn ugu dhimano saani sheegaba sida loogu talagalay waa 270 wuxuuna haysaa 260 halka ka kale tan uu ka haysto 214 iyo waxyaalo mid ah waxaan rajeyn doonaa doorashada si qurux badan in ku dhamaato adinkana waxaan filayaa videoga ka badateen hadii aad barnaamijkan hore u heshay ku soo dhawow si aad la socoto mar walba barnaamijyadan kaleete halkaan aad uga bagato inta ku kulmayna videogan iyo video kale oo la mid ah waxaan kaga tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh